waxyaabaha fitanta waxaa ka mid ah social media oo la isticmaalayo marka gabadhan waxay leedahay haddii facebooka ama wixii lamid ah aan fiiriyo ama isha iga dhacaan wixii xumaanta oo meesha ku jira oo aan sheer garaynin ama dadka kale aan la wadaagin dembi ma iga soo gaaray social media ama warbaahinta waxyaalaha bini aadamku wax isku gaadhsiiyo oo dhan waxaa la yidhaahdaa waa silaax duu xadayn waa hub laba afle waay xumaanna waa loo isticmaalaa wanaagna waa loo isticmaalaa laakiin inta xumaanta u isticmaashaa badan 10% ma dhanna khayrka ku jira iyo wixii wanaag loo isticmaalo maxaa yeelay caalamka hadda isticmaala ayaa u badan gaalo iyo munaafiqiin iyo fusaaq u badan sidaas daraadeed waa suuq nin walba badeecadiisa uu keensanayo waa kii mulxidka ahaa ilxaadkiisu keenaya zindiqi zandaqadiisu keenaya mubtadici bidcadiisu keenaya mushriki shirkigiisu suuqa keensanaya waa suuq marka wax walba yaalaan suuqa marka qashinku ka buuxo haddii aad adiga dhex gasho oo aad muxuu ahay dhex dabaalato shaki ma laha adoo fayo ka soo bixi maysid ama shahawaad baa ka soo raacaya oo meesha shahawaadka ka jira wuxuu ka saameynayaan ama shubahaadkooda wax kamid ah meesha ka jira ayaa ku saameynaya sidaas daraadeed waa in aad looga taxadaro haddii aad ka maarmi weydo oo ama aad dan ka yeelato ama aad doonayso inaad wuxuun ka faa'iideysato mawaaqic muayana meelo muayan oo ogtahay inaad wax ka faa'iideyso waxaan akhlaaqdaada iyo diintaada waxba gaarsiinaynin waxaan aakhiradaada wax yeelaynin wax nafci adduunyo mubaaxa uu ku jiro cidii uu isticmaalaysi si taxadar leh inuu isticmaasho waa asagoo ka iska ilaalinaya adraarta ay leedahay aad iyo aad uga taxadaray haddii ay dhacdo adiga oo dan iska banaan qabsanay ama ma ahe waajib ku gudanayo diin ku faafinay ama ma ahe muxuu ahaayay wax ka dhageysanaya haddii ay dhacdaba inaad yaani wax way ishaadu wax ku dhacdo markaasi wax weeyaan ha sii wadin bimaana wax weeye ishaada halka maray ku dhacday waxba ka soo raaci ma laakiin ha sii daawanin nabiga sallallahu alayhi wasallam wakiilaha ali wakiilaha aragtida fiirada hore adaa iskale fiirada hore marka hore ishu kaaga dhacday yaani dambi lagu qori maayo laakiin hadaad sii daawato ood ku celiso ood mar saddexaad ku celiso oo aad sii macaansato markaa waana runtii wax way aad bay halis u tahay waayahan dambe meeshaasi dhalinyaro badan baa diinta kaga baxay ilxaad iyo balaayo ka gurtay qaar badan baa akhlaaqdi ka luntay gabdho badan baa la fasaadiyay oo meesha intay wax ka raadsadeen sharaftoodii ku ciyaaray yaani wax way guur iyo nin la guursaday iyo balaaya meesha laga doonto adiga qashan qub hadaad nin ka raadsato ka war ninka meesha ku jiray waa nin si wax ka yihiin inta badan marka gabdho far badan baa istidraaj lagu sameeyay yaani wax weeyaan rag fasaqa oo khariban ay isaga dhigeen muxuu ahay rag khatar ah u gacan galay kadibna wax way lagu ciyaaray oo sharaftoodii dhimatay sidaas daraadeed meeshu meel sahlan ma social media akbar fitna oo adduunka hadda ku soo kordhay waa fitna ka weyn ma jirto idaacad baa laga hadli jiray television baa laga hadli jiray waxba laga hadli jiray laakiin wixii oo dhan waxay noqdeen iqarsay noqdeen fitna maanta ka weyn caalamka oo internet iyo muxuu ahaay iyo social media ka weyn adduunka maanta ma marayso fitnada noocaas marka ruuxi u badheera nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam fitnada ka carara miyuu mise ku carara fitnada ka carara buu nabiga sallallahu alayhi wasallam intaad carari ka fogow markay dani kugu kalifto oo aad muxuu ahaayay ka maarmo inaad ka adeegatana taxadarkaaga qaado haddaad yeeli weydo Soomaa shawriyaaku adeeg ku soo samarkaas awlaadi ku taalo wallahu a'lam